25 jir miisaankiisu yahay 20 kilogram dhirirkiisuna waa 3 feet oo qiyaas ahaan la mid ah ilmo 3 sano jir ah. Dr. Ganesh Baria wuxuu ku dhashay tuulada Talaja Talug ee magaalada Bafnagar. Riyada dhakhtarnimo ee uu lahaa Ganesh ayaa meesha ka baxday kadib markii golaha caafimaadka Hindiya ay sheegeen inuusan u qalmin inuu barto cilmiga caafimaadka oo uu dhakhtar noqdo gaabnidiisa darteed sanadkii 2018. waxaana la amray inuu bedelo koorsada uu danaynayo oo uu doorto mid kale iyadoo oo loo arkay inuusan gudan karin waajibaadka dhakhtarnimo ee xaaladaha degdega ah. maamulka iskuulka uu wax ka baranayay ayaana ku dhiirigeliyay inuusan quusan ee uu dacweeyo golaha caafimaadka Hindiya. Ganesh sidoo uu gaaban yahay riyadiisa uma gaabnayn. markii golaha caafimaadka Hindiya ii diideen inaan iska diiwaan geliyo caafimaadka, maamulayaashii iskuulkayga ayaa igu taageeray inaan kiiska maxkamad geeyo. runtii waan murugooday markii maxkamadda sare gobolka ay iyadana si la mid ah igu xukuntay. halkii uu ka quusan lahaa Ganesh wuxuu go'aansaday inuu xuquuqdiisa u dagaalamo. wuxuu dacwad ka gudbiyay go'aankii lagula kacay isagoo kiiska gaarsiiyay heerka ugu sarreysa ee garsoorka dalka Hindiya. dhamaadkii sanadkii 2018 maxkamadda sare waxa ka soo yeeray Ganesh war farxad geliya oo uu ku nafiso taasoo ah inuu sii wadan karo waxbarashada caafimaadka. kadib go'aanka maxkamadda ugu sarreysa Hindiya wuxuu iska diiwaan geliyay kollejka caafimaadka ee Bafnagar. diiwaangelintiisii kadib 1 Agost 2019 wuxuu bilaabay waxbarashada caafimaadka. xilligaas iyada ah Ganesh kaliya wuxuu miisaankiisu ahaa 16 kilogram. safarka waxbarasho ee Ganesh ee halkan uu ku soo gaaray waa mid xiiso leh. wuxuu taageero ka helay saaxiibadiis, maamulihii iskuulkiisa iyo professorka kuliyadiisa. Dr. Ganesh wuxuu yiri gaabnida darteed waxaa jira caqabado maalinle ah shaqada dhexdeeda, dhibaatooyin badan waxaan wajihi jiray xilligii iskuulka badanaa. waqtigaasina waxay caawinayeen maamulayaasha iskuulka. ninkan gaaban ayaa lagu casuumay munaasabado gudaha Hindiya iyo dibaddaba, waxaana la guddoonsiiyay abaalmarino isagoo loo aqoonsaday inuusan kaliya ahayn dhakhtarka ugu gaaban Hindiya balse adduunka oo dhan. marka laga soo tago masraxiyadda caalamiga ah iyo gudaha Hindiya, waxaana sidoo kale lagu abaalmariyay goobaha waxbarashada iyo xarumaha dawladda. wuxuu sheegay inay ahayd riyadiisa inuu noqdo dhakhtar. iskuulka waxa laygu sheegay inay tahay inaan aad u dadaalo. haddii aan gaabnida intaas la eg dhakhtar ku noqdana waxa la ii sheegay inaan diiwaanka adduunka geli doono. taasina aad bay ii dhiirigelisay. si adag baan u dadaalay, miro dhalka dadaalkaasina booskan baan ku soo gaaray ayuu yiri. dadka ayuu mar walba isagoo u qoslaya la kulmaa, waxaana badbaadinayay oo gacan qabanayay waalidkiisa. aabihiis waa beeraley, wuxuuna waqtigiisa ugu badan geliyay sidii uu wiilkiisa ku xaqiijin lahaa riyooyinkiisa. markii ay bukaanadu arkaan Ganesh aad bay ula yaabaan gaabnidiisa, laakiin markay la sheekaystaan aad bay ugu farxaan inuu daaweeyo. sababtuna waa in Dr. Ganesh yahay mid bulshaawi ah oo furfuran, bukaanadana si taxaddar leh u daaweeya. maanta Dr. Ganesh wuxuu si rasmi ah shaqadiisa caafimaad uga bilaabay isla kulliyadii uu aqoonta ka qaatay, isagoo hadda halkaasi ka ah sarkaal caafimaad. wuxuu tusaale nool u yahay malaayiin qof oo la tacaalaya naafanimo iyo takoorka. wuxuu cadeeyay in dhirirka qofka uusan xadidi karin baaxadda hamigiisa iyo waxa uu qaban karo. sheekadiisu waxay si weyn ugu baahday baraha bulshada, iyadoo dad badan ay ku sifeeyeen halyeyga dhabta ah ee ka adkaaday caqabadaha nolosha. idilkoodba xirfadaad u oomaneedo inaad ka aflaxdo aayar ugu shaqaysato ulajeedkaagu ahaa. yool academy baa idilkood kuu soo ururiyo aayar kuu baraya iminkaba abaar ayaama dabadeed adaa ka aflixi doone. ustaadyo aad u yaqaano aqoon dheeriya u leh yool academy baa ku astoobo arladeenna ugu haystee iminkaba abaar adaa u aayi doone. yool waa akademiyad u gaara barashada xirfadaha sida computer application, graphic design, video editing, digital marketing, content creation, project management, data analysis, visualization, entrepreneurship and business, research methodology iyo monitoring and evaluation. dhammaan xirfadahan waxaa ku dhigaya khubaro ku takhasustay. akademiyada yool waxay ku taallaa degmada Hodan, gaar ahaan xaafada Taleex. waxay dhinac ku haysaa Java. wixii faafahinta dheeriya fadlan kala xiriir taleefanadan kala ah 0772527288 ama 0627527288. haddaba ha moogaan yool academy.